waxaad ku soo dhowaataan mararkan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa inala socodsiinaya axmed faarax cali idaaja. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegaystayaal, waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado, suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxal siiyo. waa suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. waxaa ka mid a maansada oo gabay leh, geeraar leh, jiifta leh, heesana leh. waxaa ka mid a sheeke murtigeedda maldahan ee duluc shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curunteeda looga dan leeyahay. waxaa ka mid ah halxiraalaha iyo wixii soo raaca. sidaasi la eg carruurta soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowra usii kala baxda. waxaa qaybahaasna ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kolka lagu luuqaynayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin. suugaanta waayeelka waxaa cudhiya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. ha yeeshee sida la garan karo carruurtu iyadu waxba quman ma cudhin karto. sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u cudhiya. waase kuma waayeelka cudhiya. ka hor inta aanan su-aashaa ka jawaabin si aan idhaahdo, suugaanteenna qaybaha ay dumarka soomaalidu cudhiyaani way fara badan yihiin. waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaan ah ay u xambaarin jireen. sidiisana buraanburku waa cayaar sacab iyo jaamba leh iyo tixal lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. inanka iyo inanta isguursaday ayaa lagu ammaani jiray. waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeeddooyin kale oo ay haweenku uga hadlaan. calaacalkuba ha u badnaadee. qaar ka mida lafagurayaasha suugaantu siday qabaanna halka uu gabaygu ragga u joogo ayuu buraanburkuna dumarka u jooga. aan haddaba si degdega u tusaaleeyo taxaa buraanburka ah ee ay nala tahay inay ugu da'wen yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. aan u horraysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday. inantii uu guursadayna intay ugu faantay ku gelbisay, ayaan badaney ayaa kuu ilaalo tegey, ayaa kuu sheegay shankaroona inankayaga. sidaan soo xusay in badan buu buraanburku wuxuu ahaa habsuugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen habdhaqankiisi u bogi weyday. inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeedoo markii hore guursiga ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay, una war haysay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eeddaday inay iga dhigto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. iyada oo la garramaysa waa gabadhii kolkaa eeddadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay xumida godadlaha isu jiibinayaan. waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daalla yahay. daacad hadalkii ah maduul culimaa ka falay, dabamar badana xaggee buu ka daacaya. buraanburka ka sokow waxaa jirta suugaan kale oo ay dumarku cudhin jireen, taasoo u badan heeso mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. waxaa ka mid a heesta ariga, midda maqasha, tan alool samayska, midda badartumidda, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda caanalulista, midda maaweelinta carruurta iyo qaar kale. sidaa darteed heesaha carruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliyihii ay cudhiso.
taas sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag marba hadday iyadu tahay ruuxa ababka ilmaha mar walbaba u taagan. guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa. kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og. mayeeraan mar uu yahay, mar uu hadaaq barad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranayo iyo mar uu socod barad yahay intaba. haddiiba iyada ayaa garan karta waxa uu tabanayo. iyada ayaa goor noolba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno, si wacan u seexdo, si wacan u soo tooso, guud ahaanna uu si wacan u koro. raaxa mooyee iyada ayaan rafaadba u oggolayn. mar walba oo ay shidaad u heshaba hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay. welina malaha qaar u heesaa way jiraan. inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan iyo daarad ka lahayn ayay canuga dhabta ku qabataa, dabadeedna u heestaa. erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa, kuwaasoo si xoog leh wax uga beddela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanaynoo uu markaa ku jiro canugu, lana ooyayo sida xanuun meel ka haya, gaajo iyo wixii la mida. marmarka qaarkoodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhigiisu ciridkooda maran iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto. tuducyada heesaha carruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeeddooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesayo qudhiisa, duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalintaa ku sugan tahay. haddaba ujeeddooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso. heestana ay in badan ku soo qaado. intay kor u boodbootiso ayay ka qoslisaa, markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa. haddana intay dhugrasho ku boobto ayay laabta ugu qabataa. jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa, markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebbaweyne uga tuugtaa inuu u daayo, agteedana uu ku waariyo. waxay ugu heestaa: markaan qaadaan qoslaayoo qalbigu ii faaraxaaye quwiilow hayga qaadin. waxaa iyaduna jirtaa ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebbe kaga barido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo. waxay eebbe ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid ah inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay, taas oo inuu geeriyooday mooyee aan si kale lagu macnayn karin. arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebbe ka baryaysa ayay ugu heestaa: dhallaamada kaama waayo, dhul iyo dhagaxa u dhaxaynin, dhaab culus laguma saaro. mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda siday u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya. iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhaxayn oo ay cor yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa, dabadeedna dareenkeedaas ayay si gaara canugeeda dhagaha ugu shubtaa, iyada oo ugu heesaysa: ayaa dilay oo dagaalay, ayaa duur kulul ku jiiday, ninkii dilay oo dagaalay, ninkii duur kulul ku jiiday, dagaal baa noo dhexeeya. dhegaystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo joogo. waa inoo toddobaadka soo aadaniyey ku lamid ah hadduu eebba idmo.